Nin taajir ah oo lagu yaqiin qalbi adeeg iyo maal jecel ayaa go'aamiyay guri ka mid ah guryihii uu lahaa dadkii deganaa inay ka guuraan sababtoo ah waxay bixin kari waayeen lacagtii kirada muddo 3 bilood ah. Wuxuu u diray raggiisii askarta si ay xukunka u fuliyaan, laakiin maalmo kadib wuxuu ogaaday inaan xukunka siduu ahaa loo fulin. Wuu xanaaqay oo raggiisii si adag ayuu u canaantay. Wuxuu go'aansaday inuu isaga laftiisa soo fuliyo xukunka. Wuxuu u maleeyay dadka degan inay yihiin dad xoog badan ama hantiilayaal. Ka hor inta uusan bixin, mid ka mid ah shaqaalihiisa ee wanaagsan ayaa soo xasuusiyay xadiidkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ahaa: kuwa naxariista naxariis badanaha ayaa u naxariista addoommada dhulka ku sugan, waxaa idiin naxariisanaya Rabbiga samada ku sugan. Wuu iska indha tiray hadalka ninkaas, wuxuuna raacay askarta si uu guriga u soo ceshto isagoo maran. Ninkii hantiilaha ahaa albaabka si xooggan ayuu u garaacay, waxaana ka furay nin waayeel ah oo si tartiib u socda. Ninkii taajirka ahaa guriga ayuu galay, wuxuuna arkay inuusan guriga ku jirin wax aan ka ahayn alaab 2 ama 3 ah. Ninkii hodanka ahaa wuxuu weydiiyay odayga waayeelka cidda uu la nool yahay, wuxuuna u sheegay inuu keligii nool yahay. Markii uu weydiiyay sababta uu kirada u bixin waayay waqtigeeda, wuxuu yiri, lacagta aan helo aad ayay u yar tahay, inteeda badanna waxaan isaga bixiyaa daawadeyda, waxa ka soo harana quud ayaan ka dhigtaa. Waxaan gaday inta ugu badan ee alaabta gurigeyga si aan u dhammaystiro lacagta daawada. Shaqaalahaaga ayaan kuu soo faray inaad lacagta iga sugto inta uu wiilkayga iga soo dirayo. Ma haysta meel kaloo aan dego, mana awoodo qabowga bannaanka ka dhacaya kaasoo aad u timid inaad igu tuurto. Ninkii hodanka ahaa wuxuu fiiriyay odayga. Markii ugu horreysay wuxuu dareemay murugo, ilaa ay indhihiisu ku sigtaan inay ilmo soo daadiyaan. Kadib ayuu dhoola cadeeyay, wuxuu yiri, yaa ku yiri wuxuu u yimid inuu bannaanka kugu tuuro. Waxaan u imid inaan xaaladaada caafimaad ogaado iyo qiimaha daawada iyo quudka. Sidaa darteed hadda waxaan kuu wadaynaa isbitaal gaar ah si lagugu daweeyo. Hadda wixii ka bilowdana ma bixinaysid wax kira ah, waana kuu cafiyay wixii hore lagugu lahaa. Waxaan kuu soo diri doonaa adeega qaabilsan xanaaneyntaada iyo ka warqabkaaga, waxaana xaaladaada la socon doona dhakhtarkayga khaaska ah. Aad ayuu u farxay odaygii. Ka hor inta uusan isku diyaarin aaditaanka isbitaalka ayuu ka codsaday inuu mar kale soo booqdo. Wuu ku waafaqay ninkii hodanka ahaa, wuxuuna siiyey moobil iyo nambarkiisa si uu u soo waco xilli kasta uu doono. Ninkii taajirka ahaa wuxuu ka codsaday darawalka gaarigiisa inuu odayga u wado isbitaalka si loogu daweeyo, isagana tagsi ayuu kireystay u kaxeeyo gurigiisa. Kadib wuxuu yimid gurigiisa oo buuq badan ka jiro. Xaaskiisa ayaa u sheegtay inuu Ilaah ka badbaadiyay canugiisa shil isagoo goynaya waddada. Wuxuuna ogaaday in badbaadada wiilkiisa ay sabab u ahayd wanaaggii uu u sameeyay odayga. Wuu ooyay, wuuna dembi dhaaf dalbaday, Alle ayuuna u toobad keenay. Wuxuuna ballan qaaday inuu xoolihiisa ku garab taagnaan doono fuqarada iyo dadka danyarta ah. Waa walaalkiin Axmed oo idin leh, kuwa Rabbi aaminay adduunyada isma raaciyaan, akoonka aakhirana waxbay ku siiritaan. Saacideeya masaakiinta. Muuqaalkan wuxuu keenayaa inay bulshadu is caawisee. Inoo sheer gareeya.